gabadh muxsinada oo magaceeda iyo muuqeedaba qarisay ayaa 7 shuuli oo dahab ku wareejisay haweenka gacanta ku haya dhismaha markaska umuhaatul muminiin ee magaalada Gabiley. Markaskan oo waqti xaadirkan ku dhow gabagabo laakiin se wali u baahan taageero maaliyadeed si loo dhameystiro. gudoomiyaha markaska umuhaatul muminiin Rooda Cabdiqaadir iyo Qadiija Nuur oo ka tirsan haweenka ku bohobay markaska ayaa muxsinada magaceeda iyo muuqeedaba qarisay kala wareegay 7 shuuli ee dahabka. isla markaasna Rooda iyo Qadiija oo halkaasi hadalka iska kala dambeeyay ayaa si weyn ugu mahadnaqay muxsinadan 7 shuuli ee dahabka ugu deeqday allana uga bariyay in halkay ka soo saartay wax khayr la ugu bedelo. sidoo kale Rooda iyo Qadiija waxay u mahadnaqeen haweenka ururka al-khayriya ee ka dhisan wadanka Ingiriiska oo iyaguna soo gaarsiiyay deeq lacageed oo dhan 1700 oo pound oo ka qayb qaadanayaan dhismaha markaskani. inkastoo ururkan al-khayriya ahayn markii ugu horeysay ee deeq noocan soo gaarsiiyaan markaska. gudoomiyaha markaska umuhaatul muminiin Rooda Cabdiqaadir iyo Qadiija Nuur oo ka tirsan markaskaasi ayaa si wada jira baaq sidoo kale ugu diray dadka muxsiniinta ah. alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wa ba'd. salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waxaynu joognaa markaskii dhismaha umuhaatul muminiin ay wadeen ma sha Allah tabarakallah oo inu aragno inaynu ku jirno boqol ma sha Allah dhowdhow. waxaana la joogtaa walaal muxsinada oo Ilaahay dartii ula baxday dahabkeedii. waxay noo keentay 7 shuuli sida aad arkaysaan. ma jecla in la arko iyo inay codkeeda la maqlo iyo inay magaceega sheegto toona. waxay u sareysatay Ilaahay dartii Ilaahay wajigiina ula baxday. waana u ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala halka ka soo saartay ku khayr badan ku soo gadaal mariyo. الله الرحمن كي هكو حدو حليات كذهب ك جنة إلهي كو جنة هكو حدو الدنيا دوا مال مجابنة وحلينا هي ولا شيء إله الرحمن كأو حد شعشها أو جنة وبيستاه كسيو وحنا كوجود عيني إلهي كو بركايو إلهي عاف مثلا عنا كسيو إله أولاده كو بركايو الله الرحمن كي الدنيا دنا خاتمه ونكسم كسيو آخرنا كنا نسوق سوق وحن أباقينا دمان ولا الله محسنين تا إلهي درتي وحلا بحا إن إلهي درتي يجون أوصل صدان مركز كاثي ما شاء الله أن شوفنا دبيا قريتي وحنا أدعينا دمان أنت وحلا صوب حضي أول كيسي كصدر تطي أنت أوسط كيسي كدر تطي أنت آخر كيسي كقريب جليسة لما أنت وحلينا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم رنهانتي جب يلا شوجا قلبينتي يقرحنتي بقى عن تلقوها يا قلبينتي ولو وين جم قنتها إله إذا مكينا وحرتشيننا محسن الله وحلا بحي درتي إنه الله بحدانه وحكلو شرت إذا اسمه مركينو جبينه وحويا وحبلامي إن لا بلا بدروستي تاسين هاوشيدا u baahan tahay guri inta meel la taago wax lagu dhigan waaya wax alla wuxuu sheegaya male kaasina wuxuu u baahan yahay in la helo dhaqaalihiisii Ilaahay dirtii ubadka yar ee danyarta iyo agoonta wax lagu barayo qofkii ka bixin lahaa macalinka mushaharkiisa ilana oo in macalin loo qabto u baahan ayada laftooda in wax lagu qabtay u baahan tahay wax qabad baa loo baahan yahay muuqda sida ay Ilaahay dirtii isku kaashanay Ilaahay inoo soo galiyay inuu guriga inoo dhismo inaynu dadkii oo dhisana soo saarno insha Allah bidnillaahi kariim rajaynina Ilaahayna ka dhigo meel Ilaahay diintiisa lagu barto lagu dhaqmo lagu fahmo bidnillaahi ta'ala. الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أخواتي في الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kaga gudoonay walaashay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigeeda iyo kii waalidkeed baa Allah dhaafo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu jecesho jannada u horeysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah siiyo xuliga jannadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u xidho qusuurta jannadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala الله كقيب دقو كوا إلهي سبحانه وتعالى تيس أين متصدقون لليه هنا إلهي سبحانه وتعالى كم دياله حرك إلهي تشوك سلام على قيام هين دبعت هذا فرب بدن رنتي وحويا إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن كلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم قارب ميسان رنتي وحويا إلا واحد عشرين أطلب بحضان ما شاء الله تبارك الله وحي أجعلهيد وهو ناكسنا والذهب ما شاء الله تبارك الله أي ولا شيء لصوب حضي إلهي وحنا سبحانه وتعالى هل كاي كسو صارت بركة وقليو بدل كذا إلهي سبحانه وتعالى سيدك دقها وصيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت من مال إلا سادت ما كمان نسقى صدقة وحبا إلا وسيادة ساون مالك أو حن بكسي ترتا ما شاء الله تبارك الله ولكن واحد هذه أدق الدعين نقف كستو مركا وحوي صدق الله صباحي أو هرا ولا صباحي مركا إنك ما نوح الرجين إن شاء الله إن بدن خصوصا دين دونتو ويذهب كشن ده كتيرة سوق في الدوران أو يكون درسان دوران در إلهي يوقف قاسي شلي كمالين دول بهال كان هيد وحل عقول له هي ما يشرين ولا سوء بيه كوا أصلا بلقوا سوء بيه كوا ولا له كلا الله صباحين ولا له هي وحن
idinloo haynin kana ku soo darsada waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa walaalahayga khayriya ee marka iyaguna waxaan joogay UK ma sha Allah tabarakallah hablahaas oo iyaguna ma sha Allah 17 gaarsiiyay dambigooda iyo kii waalidkood baa la dhaafo horena lacag hore noo soo gaarsiiyay markii koobaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ma sha Allah tabarakallah Allah ha idin barakeeyaan idin leenahay ilaahayna ha idin ka aqbalo sadaqadiina Allah ha idin siyaadiyo imikana waxaan leenahay walaalahayo idinkama marka waxa weeyaan idinkama dheregsanine waan u baahannahay wali waxa weeyaan qayb kalena way noo harsan tahay imikana dhamaadba intani ku sii jirta ma sha Allah isleenahay ku sii bilowdaan walaalahay aad iyo aad baan idinku soo ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalin looga baahi badan yahay ha idin tuso sadaqadiina walaashayda khayrka qabtana aad baan ugu ducaynaynaa awlaadda Allah u caafimaadiyo cimriga Allah u siyaadiyo amalka Allah u wanaajiyo waxay jeceshay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha siiyo waxa weeyaan runtii daawu mardaakum bisadaqa nabiga salaam ilaahay ha ku daweeyo inta ka bugta Allah ugu daweeyo meel kasto dib ka tabanayaan ba dibta ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kor qaado waalidkeed bay u bixisay ilaahay si gaarsiiyo kafanka Allah u jilidiyo qubuurta Allah u nuuro ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga Allah u waasiyo ilaahay qabriga u waasiyo Allahumma rawda min riyad al-janna Allahumma rawda min riyad al-janna ilaahay u waasiyo ilaahay walad fiican nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay saddexan go inuu waladkaasi kamid yahay ilaahay anagana kuwaas oo kale naga mid yeel iyadana ilaahay subhanahu wa ta'ala waalidkeeda ma sha Allah الله سي غارسي نمعدا فرح بدن ay u bixisay runtii waxa weeyaan shaydaanku waa bakhayl wax badan buu ku bakhayl geliyaa dadka laakiin qofkii iska qabta sida walaashay oo kale ayuu u soo furaa dahabka ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro aad iyo aad baan walaashay ugu ducaynayna sadaqadeeda waliba ay qarsatay diidayna magaceedii sheegto inay markaa waxa weeyaan wajigeedii la arko intaaba walaashay way diiday ilaahay subhanahu wa ta'ala sadaqadeeda Allah waxaan leenahay Allah u siyaad